kulanti wacan daawadayaal magacaygu waa Qaasim Philippine halkan waa magaalada Garissa waxaan idin soo gudbin doonaa xog ku saabsan gabadhii la afduubtay maalinnimadii Khamiista lagana afduubtay magaalada Garissa Faiza Hassan Hussein yaa afduubtay imisa ay ahaayeen ragga afduubtay sidee bay ku dhacday inay badbaado waxaan idin kaga helnaa xog dhameystiran bal nala daawada xogtan marka salaada casar lagu jiro ayaa waxa dhacday anigoo ka soo baxay gurigeena oo markaas ayada ah soo dukaday oo xaafad jiiraanka oo waxba fiican aan noo jirin dhankooda aaday anigoo wax u doonana xaafad jiiraanka ayaa waxa dhacday dhanba iskama fiirin amar Ilaahi waxaan aaday ilbaabkii laba mar markaan saan u qaraacay hal mar lagu soo duulay qabtinta ugu horeysay afkay ahayd oo afkayga la qabtay si aan u dhawaaqin mis aan ku halin halkii maroon iska fujiyana wuxuu ahaa hal nin oo kaliya hadalkii ugu horeysay ku halan hooyo kali ay ahayd isla markaan soo baxsaday oo igu dhex tuureen nin kale oo asagana gaalmadow ah timo jareer u soo baxay ayaa lugaha ay qabtay dibadeedna waxay igu dhex tuureen gaariga igu dhex tuureen gaariga intaan ku dhex jiray cabsi ahaan baqtin yacni uma baqin inaan dhimasho iyo waxaas camal kan baqin ilaan hortay ayaa gabdho walaalihii oo Soomaaliyeed oo muslimiin ah la soo yeelay aniguna cabsi ahaan saas imay galin laakiin waxaan ka baqay meesha igeen doonaan iyo si ay u dhaqmi doonaan gaariga intaan ku dhex jirnaa isku damcay inaan gaariga ka baxsado oo gaariga ku qaraacay gacmahayga dhanka dariishada soo xigta gaarigan ku dhuftay gaarigana hadaan ka dhex qaylo kolay wax ku maqlaan ma lahin ayaan isdhahay oo hadaad ku dhufto kolay haday jabto gaariga dariishadiisa waa laga maqli karaa intaan xarbinta ku jiray ila xarbiyeen ay qabteen ay dharbaaxday iyo wax igu dhufteen ay markaan iska fadhiisto aan baarkay inay awood badan yahaan ilaan nimanku halna muxuu ahaa nin Soomaali oo Christian ah midna wuxuu ahaa mid gaalmadow oo Kenyan ah afka waxba imay qaban laakiin waxay isku damceen oo badankeed inaan aamusnaado oo xarbinta joojiyo laakiin ana xarbin inaan joojiyo maskaxdayda ahaan imay tusaninba baqdan waa iga laakiin baqtin aan ku baxsado ama aan isku dhamaanta meeshan ku ekaaw imay laakiin saan ku bixi lahaa falkeeda gal lahaa gaarigi ninkii marka waxay u bilaabeen inay la xarbinay ay dharbaaxeen marka nin gaalmadow oo dhankeyga fadhiya ayaan isku damcay inaan maask wajiga ku qarsanayn aan ka siibo sifaha dhowta ama aan baxsado ama aan ku dhinto waa Ilaahay iyo Quraan bislaha laakiin waxaan isla dadkan saan ku weelayeen ama kala hubsataa ama dad aday ku qorshe ku soo dageen oo aqoon u qabtay inay ahaan mise inay yihiin dad aad garaneen oo dadka iska afduwanayaan bislaha aniga marka waxaan isku dayay inaan ninkii maaska ka qaado wixiyoon baqtin sayid u siiweyn ay ugu jirin aan marka maaska ninka ka siibo maaskan ka siiwaana ma ahayn maaskan caadiga oo hadda aan xirano wuxuu ahaa maaska gangsters ay xirtaan oo ilaa luqunta ku gaaro indhaha isanka biska banaan maaska ilaa sanka camal waan ka jiiday sakiin gacmihian saan ugu qabanayo oo ninka la xarbinayo inaan maaska qaada gacantayda bidixay ku bilaabeen inay sakiin iga jiraan gacanta ay sakiima igu jarjareen intay igu jari karaan anigana waxa la xarbinay intaan maaska ka siibo marka waxa dhacday inay sakiinta igu jarjaraan oo inay gacmaha soo qabtaan sakiinta markay arkeen inaan badhankeeda aan fiirinayn mise aan daniisanayn oo inta icaad ay tahay inaan ninkaas wajigiisa kaliyaan arko ay igu soo tuureen mindi silsilad ku xiranta mindida igu soo tuureen amar Ilaahi markaan guri ka soo baxay xaafad jiiraanka daan ay taas ma lahayn dirci gabsar ku bax waxaan iska xirnaa xijaab amar Ilaahi mindida igu soo tuureena Ilaahi wuxuu u qor gadaal u yarboodan naxtinahan gaari fadhigiisana wuxuu ahaa laba ku hore laba dhax iyo ku dambe dhankoodan saas ugu booday anoo kanaxsan inay mindida durto ilaa waxba fiican iga muuqdin inay durto waan isarta caloosha wax yar iga sartay Ilaahi iga qabtay mindida dirci way jeexmatay mindida ugu horeysay dirci ku soo dhacday jaxlay gabsaarka xijaabkii wixii dhamay ka soo baxday markaas uu cishta
أنا وحاس ده كل يكون هدي أتكبح ستمس هدي أتكبح سوى صرت أنت ورسمها لو حنكون فعنا ما قيلين مع العلاد وحبوك مقلين آير وافر لكن حربنا كجرا إن وجيس عن سكودا أنا فاهم كر أنت عم بسكودا أنا وجيس فاهم مركب من دين مركب وصلت ورانا كير كينا وجي وسيع عشت لكن أنا جمرك الفيري قار كيس صار وجي ما فيرين وحان أركي دائما أفكا وحان كأرك السنكيس وحي يرسي لو فريق حربنا بلاوينا نمانك لد الدقالو قعانا إيقادين وي رباح دي وقفتين مركز سكينتي إيلا صبحينا ما إيهن سكين أي مركز أي ku isticmaalayeen ahaan ma ahayn sakiin ay frame markaas ay waxay ahayd mid uu ninka jeebka kala soo baxay waxaan la soo bixin Soomaali Christian ah labaduna aanay wada Soomaali ahaan laakiin Christian ahaan sida ay ii sheegeen marka gaariga intaan ku jirnay waxa dhacday inay sakiinta gacmaha markay ugu sarsareen gacanteed midig amar la sakiin ku meesano ay ficneed ay bilaa marka inay sakiin iga jarjaraan gacmaha labada gacmoodba إلا قربها ويجا جرجران درع آن قوي حجابك إنتان حربين كجرا يدعي ميلان أكتر دام الوجه وصان أفضل بودي كده لكن قبصارك آن قوي أي كسر حبيحنا سكين تعالوش وحي سكين صان وجرجرانا نورا يريجا قرتي أنت ودرناد السكين تاسكلي ما هين وحي هات إنتان حربين تكجران حربينيني أي إلى صبحين عربد أن كسوعة oo ama haday ugu diraan oo ku mir dawal ma yaani meesha rabaan ay u geysan karaan markay cirbada la soo bixin amir la waxa dhacday inaan cirbadi cabsi dhankeeda baan ka galin aan la qabsado cirbada ninka cirbada soo igu soo tuuray oo ninka kale u soo dhiibay agteeda fadhiyo ahaa nin oo madow ah laakiin aan Nigerian ah oo laakiin hadda kuma dambaadi karo ilaa ma ahayn ninkaas nin Kenyan ah markay ugu horna waxa maleynaa baalu Yaman ilaahay waxa fahmay inuu ciidan Iran ahaan uu nin Nigerian yahay ninka soo dhiiban dhaxlaana ninka waa la qabsaday cirbada inta la haystana waxa gadaal la fadhiyaa mid Soomaali iyo mid adoomay horna waxa soo fadhiyaan driver-ga gaari waday iyo laba mid cawiid iyo mid asagan Soomaali ah marka intaan meeshaas ku xarbineen marka cirbada ayaan gacanteeda bidix ku qabtay أنا والله قبسنا إني يقادن مركب واحد على إني سكينتي أنت إيش قادنا وديك كله حجامي ديك كله سكينته عربدوا إلى قبسان مركب عربد أنت كهاي وحير إني يقدران إني يقدران أيام بكور سجود بقى جوج أيوة بالله مركب جعان قاد كأول شيء قام حد إني فيراه يوقفتان قومي نورا حنون بدن دور كي كوكي كله جركي يجرسين لأن أنا لو أنا رجع سمو حجين كرنا لكن أنت استعل ترى سودا هنا استعل جبت لما يدي يقول فناين بدأنا جبت مركب يقول فتانا عن مركب قصة عن سد عربدنا الداري سد عربدة وحي وجرينا عن كداري رجع شيء لما هنا أنا رجع عمل أسرة أما ريفنش أهان أما أرجاسي رجع أسرة لما هنا إلا هدي نقول إن ما أنت وضد أرجاس أسرة وحالة دي لها جيدا وجيو أرجوس لو أفضبته أنا حد أوهرس إن عمل أفضبته هالهاد لكن ما يسنهين وحين نقطة إن أنت سو قبله ولا له أهران سلعة سحرية يكون إنتين أنا وما أنت نفسي دقلادين كسو بالبال وحنبا واحد ذنبي ينقش يجملها كنت أرت مركو أوهرس أنا سعودي مفيرين ما أركينين كوز جارجة دريشة هي سوى مرايد مذوقات هرتي سنة مرايد لنعيه كم ضحير بسالة كاي أنت كسر حسست وحيد أنت إجيان مال ودع إلا أنا هويجي ودع بس وحدتي عن أي سنة سكوجرين عمل هويجي هدان هر وحيركو بس وير أرض لها كان على وحيركو هتا سان ديستانس بس سكوجرين هدان الأرض لها عمل هويجي سحيلتي أنا بجار لها لكن أمر لا إن جاري كل حجرون هويجي هتا أنا وحيركو بس أنا وقت ما أنت ودع أن سوق لين ولا ميدك سودا ayaa soo wacnay ka gaaray waday wuxuu dhahay marka ani waxaan iska dhig waxaan baqoon luqadooda yaani waxaan bafahmeena iska dhig English oo ku hadla waa la soo wacay wuxuu dhahay gabar Soomaali aan ku hayaa soo meeshaan ku kulmi lahayn amal bridge-ka ka sii xaga markuu ku hadlayna wuxuu dhahay waxaa Soomaali dalku soo let us meet near the bridge ay ku balmeen markaan anu xaasday kulay haday bridge-ka ku geeyaan bridge-ka meel ay kala baxan malaha
dabadeedna waxaa ii cadaatay inay bridge-ka dhankay la mareen ama ay dadkan ku xisaabtama inay doon igu qaadaan ee dhankaas igu mariyaan waan dareen marka waxaan isleeyahay daabudoonta lagu qaadayo kolley saad ku baxsanayd falkeeda inaad gashaa meesha lagula maray amar laa waxaa dhacday nimankii waxay ku soo amal meeting yar ay galeen oo shiriyal ay ku yar galeen maya way iga degeen gaariga markay iga degaan ninka waday waxaa lagu dhahay gaariga ku qufulay dhaheen yacni ka soo baxsan gaarigana ma ahayn gaari camal oo dariiqadiisa saas la iska furaayo sida gawaarida caadi wuxuu ahaa gaari matatu ahaan oo matatu ku yar daaqadiisa la iska jiidayo soo igu soo qufuleen anu waa fahmi waaye gaariga la gaari ugu cusub uu ahaa meeshiisa laga furay meeshiisa kale in walba oo isku try gareey markay igala baxeen niideed waxa gashay runtii saad ku baxsato adagta meeshan oo ilaahay ka bixin arag hadii kan arag soo gacan bil aadan kulleanay horaan uma walhanba ama aad ku dhimatid ama ku dhiman waan laakiin inta xumid waxay inay silay saxriir idilaan amal ama kursi ii geystaan taayada ma kool baarsana waxa dhacay ninka gaariga waday inuu haddana ku soo laabtay gaariga dhankiisa isagoo biyo uu cab ka dhaxraysanay gaarigu furay uu soo galay biyo qaatay kadibna igu muuqufnay ilbaabka kale ayuu xiray fureen jeeb gashto la sii tagay markaan arkay inaan fursad isoo mareysay tahay markay ilbaabka furay markaan furay marka aayarko ilbaabka aayar markaan jiido soo garan guushay anigoo naxsan ka soo baxay meeshii soo yar orda baar markaan soo yar garan guushay camal wadadaas ayada ahaydna ma ahayn wada gaari camal uu ku socon karo wada maxay ahayd kori hoos u dhadhacis markaan ku soo dhacay waxaan isdahay gaari camal markaan xagga camal sii socdo ilaa inta ruuhan garan guulnaa imay dareemeen waxaan isdahay intaan camal ku sii ordo ama ku qabtaa marka dharkayga ay arkeen labana caadi ay isoo doogasho isoo doorade saddexda kalena gaariga iga soo dooqateen gaariga sideen ku soo socdo ku soo orday ilaahay iga qabtaa mar la ima soo gaarin wax yar markaan cabaar soo orday ayaa marka laamiyaan ku soo dhacay hortaydi dan waxaan arkay markaan fiir iga jirta meel cil ahaan dan ooday dhinacyaha saansaanay ka tahay arkay soo waxaan isku day inaan dhankaas u carro dhankaan u soo carran ama ilaahay ii qoro waa dhan ay dad degnayeen oo buula sheekh la dhahayo ay ka bilaabanayso dhanka hubiga u dhow buuladaas dhanka dhamaadkeeda hubiga u dhow ay ahayd meeshay iga sii geeyeen oo buulada cabaar u yar jirta laakiin meeshaas markaan tagana way soo doofiijiyeen gaariga hata markay iga soo dooqataan laameyda waxay la soo baxeen masaar laameyda dhexdeeda dhankeeda kalan ku ordaayay masaar ay la soo baxeen masaarta ila soo baxeen amar laan waxaan bis dhahay masaartan kolley haday kugu soo tuuraan qoorta aan kugu dhufanaan gaariga kugu sii qaadaan at least markay ugu soo dhawaayeen masaar saan ugu soo tuureen wallahi koos fadhiistay ilaahay iga badbaaday niideedu kuma jiro markaas ayada cabsi zaid gashay uma jiro inay qoorteeda igu sii taali doonto mise aan nolol dambe meeshaas ayada ka rajeenay waan ka fadhiistay markaan ka fadhiistay ark masaartu ay kormartay ugu dhicin meesha ayada ahadan gadaal u yar baxay markaasay steerinka gaariga intay gadaal u soo cinaadana hor u soo fakaday hortaan u soo fakaday ugu meeydaan waa iga soo dawgaleen markaasay igu soo gaariga boodigiisa dambe ahaan isoo aadinta waxa islaa way ku dhaceen gaari way ku dhufteen amar meel laameyda jirkeeda ahaan oo laga dhacay camal buunta ahaan ku dhacay soo niideed waxaa gashay meesha daawo ka dhacdo waaw caadi waaw ka dhacdo waaw way ku dhaxgalay karaan oo meesha ku soo qabsan karaan siima istaagin waxaan islaa nimanka soo degi doonaan kolley face-kooda waa iska siibi doonaan maaskooda halka qof ama waxaad ka aragto ama iska siiwaan waayar suuga gaariga markay ka soo degan waxba iska meesii markay dhankay u soo soconaan arkaan soo cararay waxaan ku soo cararay meel koono dheer ah koonihii dheer hore ugu soo ordeen waxaan ku soo leexday meel koono dheer yar oo loo maleeyay inay dad degan yahaan meeshaas ayada ah looma haysan inay meel ay dad ku nooleeyeen wada maxaad shortcut ahaan oo meel ka dhacayso oo buula sheeqay cidaan soo galay anigoo naxsan oo orda oo kuraa cidaan dhex galay wax kale kuma hadin biyo siiyeen wax yar saa una naxsanaa waxay dhaheen saa meesha ku imaad way u weydiiyeen waan u sheegay soo meeshaas ay gaariga meesha way